بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركان toddobaad waxaan ku qaadan doonaa timeline. Timeline waa qaybtan hoose ee ku edit garanayno ama aan ku habeynayno waxyaabaha uu videogeedan ka koobnaan doono iyo sidaan u habeyn lahayn iyo si ay usoo kala horeynayaan waa halka aanu dhigan lahayn. Markaas si aanu u isticmaalno waa arrowgan baa ugu horeeya oo inoo sheegaya kolba halka aanu joogno iyo waxa uu ku beegan yahay inoo sheegaya. Arrowgan wuxuu leeyahay in gooni aan calaamaysan karnaa oo inaan dhageysanaan rabno. Laba dhinac buu leeyahay, waa casaankan oo bar dhamaadka iyo akhtarka oo bar bilowga ah. Intaasi ayaanu dhageysan karnaa oonu daawan karnaa. Markaan intaa highlight gareysano intaa ayaanu dhageysan karnaa aanan dhageysan karnaa. Calaamadan markaan joogno haddaan doonayno inaan kusoo celinana iyadoon baan laba jeer double click taabanayna. Markaan doonayno inaan videoga meel ka qaadno meel kala geyno drag and drop baan ku samayn karnaa oo halkaas ayaan ka jiidaynaa inagoo mooska inagoo left click tahayna ayaanu saa u jiidaynaa. Trimming baan ku samayn karnaa oo inaan xagga dambe saa uga soo jiidno ka soo yarayno ama aan markuu inagu sii yaraado aan dib u ceshano oo saa u weyneysiisano intuu yaalayo meesha. Kuwan waanu soo qaadanay halkan saan usoo dhigan lahayn oo saan ugu soo dirsan lahayn casharadii horaan kusoo qaadanay. Media saan ugu soo import gareyn lahayn mediahan aanu haysano markaan kusoo darayno timeline-kana oo videogeena si uga soo muuqano. Kuwa halkaa yaala kama soo wada muuqan doonaan videogeena ee kuwa halkan aan soo dhigno unbaa videoga ka muuqan doona oo videoguna wuxuu ka koobnaan doonaa intaa iyo saan u habayno. Markaas saan ugu soo darsano waan soo jiidaynaa halkaan u baahannahay inaan dhigno ayaan dhigaynaa. Waxaan doonaynaa bilowgaba inaan dhigno wakaas bilowgaba inaan dhigno videoyaduna siday usoo kala sareeyaan ayay usoo kala muuqan doonaan shayyadan elementiska halka inoo yaala. Haddaan kan halkan ka hooseysiino oo kale mana arki doono oo waxay naga qarinayaa kan ka weyn ee ka sareeya. Marka kolba ka yar baa dusha lasoo mariyaa ama muuqaalka yar ayaa dusha lasoo mariyaa si aad uga arki kartid markaas. Si aan waqtiga usoo koobno oo kale iyo degdeg wixii ugu shaqeynayno copy baan isticmaali karnaa oo halkan inoo taalo oo kale tan oo kale copy. Waxaan doonaynaa inaan halkaas dhigano oo baalkeenu halkaa inoo yaalo baas baan ku oranaynaa. Hoostuu soo dhigay korkaanu keenaynaa si aan uu kasoo dul muuqdo shaygan oo shaygii weynaa baa kasoo sareeya. Inagoo soo qaadayna drag and drop ku samaynayna ayaanu soo dhiganaynaa halkaanu doonayno ayaanu dhiganaynaa. Videoga inaan dhexda meeshaan doonno ayaan ku kala jari karnaa oo intaan doonno ayaan iska jari karnaa. Waxaan doonaynaa videogan intaas oo kale wuu dheer yahay inaan iska jarno. Waxaan taabanaynaa markaan select gareysano videogaan kala jarayno tan baan taaban doonaa ilaa xagga aan ku jarayno ayaan haddana select dhahaynaa oo ku jari doonaa. Ama waxaan samayn karnaa inaan mar kaliya wada jarno oon labada dhinac tan hareeraha halkaan ka bilaabayno. Waxaan doonaynaa videoga halkaas ilaa halkaa inaanu iska jarno. Waan isticmaali karnaa delete oo meel bannaan oo inagu samaynaysa. Delete ma baahnina waxaan u baahannahay inaan control
egas oo kale cut nidhaahno way ka dhex saartay labadiina way isku soo keentay oo wayse soo gaadheen labadii video ayaan ka dhex saarnay. halkana waad ka weynaysiin kartaa si aad shayada qabanaysid ilbiriqsiyada kuugu bataan aad u arki kartid ilbiriqsi ay kugu yaraadaan. kana aad ba usii yaraadeen ma edit garan kartid tanba taabo oo muraayadaada ku leekaado. waa sidaas ayaa loogu shaqeeyaa timelineka videoyadana sidaaba loo soo kala sarsaraysiiyaa. arrowgana kolba wax kuu sheegaya meesha halkan baad ka bali garayn kartaa waxa meesha ku socdo. kaasoo kale haddaan halkaa u jiidno markuu halkaa gaadho wuu ka bixi doonaa sawirka halkaa yaalo weeye. markaa sawirka halkaa yaalo uga baxay haddana markuu halkaas videogu gaadho oo haddana halkaas gaadho wuu kasoo muuqan doonaa. sidaas ayaa loogu shaqeeyaa timelineka. cashirkeena maanta intaa uu ka egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.